السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كسود وهذا channelka engineer أحمد كماندو channelka waxaan kaga hadalnaa waxyaabo ku saabsan civil engineeringka iyo constructionka iyo sidoo kale waxyaabo technician ah oo faa'iido kale u noqonayo qofka inuu iska barto run ahaantii video ku soo aragteen maanta waxaan bilaabi doonaa video taxana ah oo isagu video taxana ah oo project bilow ilaa dhamaad ah kaasoo loogu talagalay ardayda dhigata jaamacadda ama kuwa qalin jabiyay ee aan wali jaanis u helin in ay wali shaqo galaan ama ay khibrad la'aan hayso run ahaantii projectgani waa project yar oo 25 iyo 12 min waxaan kasoo bilaabaynaa bilow ilaa dhamaad yani estimationkiisii ilaa iyo dhisidiisii ilaa iyo dhammayntiisii ayaan insha allah ka bilaabi doonaa run ahaantii caqabado badanna way jiraan oo maxaa soo darisa yani site-ka marka la joogo ka baxsan yani wixii jaamacadda ama macallimiinta ama buugtan ka akhrinay oo ku xidhan yani situationka yani positionka aad ka shaqaynaysid haddaba yani mashruuc marka la bilaabayo run ahaantii yani ama la xaysiinayo kale waxaa jira asbaabo badan oo mashruuca loo helo يعني سيابو بدن oo mashruuca loo hela ayaa jira waxa kamid ah iminka kale haday hay'ad ama ay dawlad dhisayso kale way soo xaysiisaa yani qadaraaska soo xaysiinaysa kadib shirkadaha soo tartamaya shirkada hesha ayaa loo dhiibaya sidoo kale waxa lagu helaa mashruuc oo kale yani inuu qof yani u bogay yani dhisitaankaaga intuu ku yimaado ku yiraaho idis gurigaas sidoo kale qof aad wax isku tihiin oo intaas ay ku badan tahay Somali run ahaantii oo yani uu qofka yani u dhow ama ay wax isku yihiin uu dhiibto yani gurigii kadibna u dhiso marka yani asbaabo badan baa jira oo loo heli karo mashruuc laakiin mashruuc heshay laakiin sidoo u biloobi lahayd ayaa muhiim ah run ahaantii horta qofka markuu ku yimaado ama qofkii guriga dhisanayay markuu ku yimaado gurigi tag soo eeg yani run ahaantii baa deemaan baa noqonaysa inaad tiraahdo waan ku dhisay okay hore kama qaadanaysa mashruuci taana waa waxyaabaha badan ee dadka yani hadhow yani gadaal kaga soo baxdo maxaa qasaaraheedu guriga waad tagaysaa run ahaantii markaad tagtid guriga waxaad soo eegaysaa dimensionka inta uu noqonayo also elevationka soo eegaysaa elevationka yani guriga height-kiisa yani dhulku isku ma sinno gaar ahaan Hargeysa oo kale ama Boorama hadaad aragtid yani magaalooyinka ma sinno qaarba buuro ku yaala qaarba muxuu ahaa meel ku yaala marka ma sinno elevationaduna way kala waaweyn way kala dheeraanayaan run ahaantii marka loo eego yani meesha aad ka dhisaysid muxuu project ka dhisaysid guriga mesela elevationka waxa looga baahan yahay waxa weeyaan يعني height-ka markasta aan dhisayno maxaa size-ka also back feeling-ka marka shubayno waxaan ku xisaabinaa depth-googa yani depth-ga inta depth galaysa ayaan ku xisaabinaa so way kala weynaanayaan yani iminka qaar 40 ba buuxiska gali kara back feeling-ka qaar ba waxa gali kara muxuu ahaa 30 way kala weynaanayaan markaad soo eegtid maxaa elevationkii iyo dimensionkii kadib baa design-kii sameynaysaa design-kii qofka uu ku qancay markuu yiraaho kaasa iga dhana ayaad kadib waxaad bilaabaysaa inaad cost estimationkiisa soo saartid cost estimationkiisa baad bilaabaysaa isaga laftarkiisa oo run ahaantii raydadka magaalooyinka way kala duwan yihiin raydka magaalooyinka way kala duwan yihiin marka raydkiisa ku soo saartid laba waxaan ku dari lahaa laba asbaabood oo keena yani inuu keeno mashruuc fail gareeyo oo kale run ahaantii waxyaabaha mashruuca fail gareeyo way badan yihiin ta koowaad waxa weeyaan in uu qofkii ka hor una ka taxadirin oo yani waxyaabo badan uu ka taxadirin sida isbedelka suuqa oo kale yani waxa dhici karta in mashruuci aad maalinta ku qaadatay iyo maalmaha bilowday uu rate kala duwan yahay oo yani suuqii waxyaabihiis isbedeleen oo kale yani rate baa lagu xisaabtamaa oo ratekiis bedelo kale ayuu noqon karaa sidoo kale waxyaabaha mashruuca fail gareeyo waxa weeyaan waa inuu delay ku dhaco delaygaas oo waxyaabo badan keeni kara in materialki qofka ka soo daaho in
muxuu ahaa waxyaabo badan shaqaalihii oo kale iska dhayaasada maalin wax yar shaqeeyaan kadib iska tagaan. Waxyaabahaasoo kale ayaa sababa in mashruuc fail garoobo. Run ahaantii labadaasaan ku dari lahaa. Waxyaabo badanna way jiraan insha Allah site-kan ku arkayna iyo fiidiyoyada insha Allah soo socda. Fiidiyoyada run ahaantii part bay noqon doonaan insha Allah. Clearance-ka kadib site clearance-ka kadib waxaan ka bilaabi doonaa foundation-kii masonry work-kii waxaasoo dhan insha Allah site-kan ku arki doonaa. Asxaabi saan hore inagu sheegay mashruuc wuxuu noqon doonaa mashruuc yar oo magaalada Hargeysa laga dhisi doono insha Allah, gaar ahaan xarunta dhalinta oo ah yani xarunta agoomaha. Run ahaantii saan nii sheegay horey yani mashruuc yar weeyaan, waxaana laga dhisi doonaa xagga aan hadda arooga ku hayo oo ah yani same as sida kuwa dhisan oo kale oo isku same dimension yihiin laakiin wax yar ay ku kala duwan yihiin. Plan-kan hadda soo furo plan-ku waa kan. Plan-ku wuxuu noqon doonaa insha Allah sida kuwaas oo kale. Building kaasuu noqon doonaa 2 barande dibadda ku leh yani albaabka, sidoo kale dhowr maqsin gudaha ku leh iyo 4 suulina dhexda ku leh iyo kitchen iyo store-kii. Intaasuu noqon doonaa insha Allah. Sidoo kale wuxuu noqon doontaa yani muddo dhowr bilood ayuu socon doonaa insha Allah. Dhowrka bilood oo dhan waan wada joogaynaa insha Allah. Kulley fiidiyoyadu ay gaabnaanayaan saa usii dheeraan maayaan insha Allah. Wixii yani tafaasiil oo dhan insha Allah inaan kusoo gudbinayaan rajaynayna insha Allah. Sidoo kale cost estimation-kana already waan sameynay laakiin sorry pricing-ka hadda waa qariyay yani maadaama shaqo socota ay tahay oo dee ay noqonayn insha Allah. Laakiin run ahaantii rate-ku wuu ku qoran yahay, rate-kii maan xidhi rate-kii wuu furan yahay. Cost estimation-ka run ahaantii dee waddanba gaar buu u waxeeyaa cost estimation-kiisa, laakiin rate-keenu waxoogaha uu is yar dhaafay. Shirkado oo dhan hadda way kala duwan yihiin, midba rate gaar ayuu isticmaalaa. Asxaabi insha Allah intaas ugu diin doonaa fiidiyoga insha Allah. Fiidiyogu dheeraaday maanta hordhacuna inaga ahaato insha Allah. Berito alle marka shaqada bilowna insha Allah waxa yani site-ka ka dhaco dhan insha Allah inaga soo socodsiin doonaa. Sidoo kale run ahaantii waxaa muhiim ah in markastoo internet site-ka tagin ka hor aad samaysatid yani documentigii yani oo ku diyaarsan planning-kii bulacad xagee noqonaysa wixii oo dhan iyadoo ku diyaarsan in aad site-ka la tagtid kadib si waxayna kaa caawinaysaa yani shaqaalaha ku shaqeynaya in ay si fiican u fahmaan oo yani oo aanad yani in badan waqti badan laga qaadin isfahansiintu maadaama wixii diyaarsan yahay hore baad ka tusaysaa hore shaqada u qabanayaan. insha Allah waxyaabo kala jira dee dhismo maaha yani waxina waa maamul waa management insha Allah waxaas oo dhan waan la soo socodsiin doonaa material kasta loo soo dalbado sidoo kale muxuu ahaa shaqaalaha loo kala maareeyo waxaas oo dhan insha Allah waan la soo socodsiin doonaa. insha Allah fiidiyogan intaas uu ka eegyahay nagu soo biir hadda nagu cusubta insha Allah. sidoo kale gambalka furasi ay fiidiyoyadu ku dhaafin yani serialka kale fiidiyoyada waxaan ka wada taxano oo kale إن شاء الله سيكون في المصابير سواء كان لايك تي سبسكرايب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين للجوجي إنجنير أحمد كمان إن شاء الله. أنت فيديو كلامكم كل مينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.